dhuuclo badan aa jiro anigay rabay ma ogtahay marka aniga dhuuclo badan aan maxaa la dhihi jiray wada way jireen so tan iyadoo og inaan tan shukaansanayo tanna way imaanaysaa waan shukaansanaya tan ahayd naagtii muu helin anigoo saaxiibkii ahaana wuu luus gareeyay barnaamijka sheer gareey follow sameey like sameey ani hadda kor waa inaa waxaan ilaasha u sheegaan u balanaya iskuulka waagii ciyaalka iskuulka lahaa baan maxaa la dhihi jiray yes from day one brother ninkaan odayga naagaha laynay ku jireen so dhuuclo badan aa jiro anigay rabay ma ogtahay marka aniga dhuuclo badan aan maxaa la dhihi jiray wada way jireen so tan iyadoo og inaan tan shukaansanayo tanna way imaanaysaa waan shukaansanaya tana imaanaysaa waan shukaansanaya mid kale imaanaysa wayna iswada og yihiin ya xariif marka waxaa jiray aan saaxiiba ahayn waayaaba xariifkan wuxuu dhahay ninka naagahaasaa u shabinaya si camalati iskuulka dhanna waa laga yaqaanaa waaga xataa iskuulka aniga waa la yaqaanay ciyaalka waxaa ku jiray oo maaragtay galaaska ugu activesan maxaa la dhihi jiray ugu xariifsan ugu wax kasta movementyada barnaamijyada kala kicin waxyaabahaasoo dhan baan kala tuuri jiray ma ogtahay markaasaa waxaa dhacaysa ninkaa saaxiib aan ahayn marka waa yaaban yahay xariifkan marka naag dhan ma helano asaga ciyaal iskuul baa layska yahay time baa layska hayaa naagahan iyagana waa iska iskuulley bas waxaan dhahay waa lagu kala kicinaa tartiibtaada xariifkan uu baxay qoftoo aan isku fasal ahayn oo qoftayda ahayd buu wuxuu sheegaa xaliya ninkaas waxaa waaye wasaa waaye naaga badan way mar ka dhigay naagaha dhan asagay rabaan ninkaan kuma rabo ninkaan kuma jecla ninkaan nin oo maxaa la dhihi jira wax ku qabanaya maaha brr sheekuu bilaabay adiga xarfaantaan ana ii imaatay marka ninkaan saaxiibada ahayn weligaa iska ilaali weligaa haddii uu jiro inaad saaxiibatihiin oo gadaashaada ka hadlaya ninkaas sida ugu dhaqsaha badan gooy waana xilligaan bartay muhiimadda ay leedahay rag aan gadaashaada ka hadlin rag aad isku mabda' tihiin oo isku layn tihiin oo xataa hadduu wax kaa rabo ama ku caynaya ama kula dagaalayo si toosa kuu dhahaya ee sida dhuuclaha aan gadaashaada kaa tooganaynin inaad u baahan tahay ninkaan marka wuxuu isdaayay ninkan xarfaantan ku dir qoftaan ha ka tagto kadib qofta shukaaso sidaa naa ku hel ninkaan wuu og yahay 4 naagood 6 naagood oo kala duwan inaan shukaansado iskuul kulligood aan nahay mid fasalka 8aad ay tahay mid fasalka 6aad mid fasalka 5aad kullina waxaan dhan they don't care brother they don't care naag hadday ku rabto way ku rabtaa period ma jirto maxaa la dhihi jiray qasab ma jirto oo naag kalaad shukaansataa dharrag waxaas ma jirto no xariifkan marka waan ogaaday inuu qoftayda intuu tago wuxuu ku dhahay ninkan odayga waxaa waaye naaga badan wataa waa adigu kuma rabo saan waaye xarfaantan maadaama ay rabtay darteed fiiriya naag hadday ku rabto way ku rabtaa just qasabka jooji waxyaabahaasoo dhan jooji oo way baxday way imaatay waxay imaatay aniga imaatay xadhaas papi ninkan wuu daalan yahay ninkan wuu daalan yahay si camaled waxaan igu dhahay ninkaaga naaga badan wataa saan waaye adi lisanaa ku dhahay papi ma maqlaysaa mise nin kale maqlaysaa adiga see camleeti adiga xataa no filinkaaga muu bogin ba adiga papi ma maqlaysaa mise nin kale wax ka maqlaysaa ma adan ku maqlaaya okay ana haday maqlaysid caadi iska dhig anaga wax ma naga dhaxayo kala dhibay ma jiro ma tartiibtaada caadi iska dhigaan xarfaankan saaxiibadahay noo gambiyay isaga so always intaad ninkaas oo kala noqon lahayd sida dhuuclaha aad u dhaqmo because of waanu gambiyay always waa inaad fahansan tahay hanicin waxba masayr ha bilaabin waxba ha ka xumaanin waxaad dhahdaa niyow fahansi waxa shaxday fahansi papi shaxday fahansi waa caadi way wareerin kartaa waa fahmi karay waa fahmi kari weynaya papi indhaha ii kala fur diyaar baan u haynaa indhaha ku kala furan ku caawiyo laakiin haddaad aragtid nin sidii naagta u nacaya oo dhahaya waa necbahay ninkaas waa necbahay ninkaas korkiisa iyo siduu u egyahay waa nin inta naag buu ka yahay laakiin waa inaad fahansantihiin inaad isla fahanaa rajaynaya aygu waa xaliye barnaamijka daawanaysa oo fikrada xaliye maxamed comment khaldan haddaad soo qortid waa baxaysaa no ha soo qoraan sii bixi leh ha ka waalin xataa sii bixi leh okay sii bixi so maxaan ka wadaa sheekada maxaan kugu soo qaatay 2 cashar baad ka fahmi karaysaa sheekadaas number 1 naag hadday ku rabto way ku rabtaa you don't need inaad qasabtid you don't need inaad dadaashid naag hadday ku rabto way ku rabtaa ama qasab ama lacag ha siinin ama maxaa la dhihi jiray ii gembi ku dhe ama naaga kala hayso ama naaga kala wado ama brother haddaan kuu sheegaya
naag hadday ku rabto way ku rabtaa waa casharka koobaad you don't need inaad waxba qasabtid you don't need inaad xataa wax yariisa oo dadaala suubisid hadday ku rabto way ku rabtaa way isku dhamaatay casharka labaad weligaa nin saaxiibkaaya gadaashiisa waxba ka sheegin weligaa nin saaxiibkaaya oo aad saaxiibad tihiin oo aad og tihiin maxaa la dhihi jiray ninkaan inuu saaxiibkaa yahay ama